السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan soo qaadanaynaa adduunka. haddaba xubintan adduunka ayaan soo qaadanaynaa maanta annagoo ka fiirinayna dhinacyo ay ka mid yihiin bulshada, dhaqamada, dhaqaalaha iyo dhinacyada kale. adduunka aanu ku noolnahay waxa uu ka kooban yahay marka si guud loo eego 5 qaaradood. haddii aan si kale u dhahnana waxaa ku yaala 195 waddan oo 193 ka mid ah ay xubin ka yihiin golaha guud ee qaramada midoobay, halka labada soo hartayna ay ka mid yihiin Falastiin oo loo aqoonsan yahay dal madax bannaan. dalka ugu weyn adduunku waa San Marino oo Yurub ku yaala, kaasoo loo aaminsan yahay inuu la degay 301 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise. adduunka dadka ku nool waxaa tiradooda lagu qiyaasaa 7.6 bilyan oo ruux, sida ay muujinayso natiijadii tirakoobkii ugu dambeeyey ee la sameeyey sanadka 2018. waxaa la aaminsan yahay inuu dadku inay kordhaan ay qaataan muddo 200 sano ah, waxaana aad loo xasuustaa abaarihii dadka ugu badan ee adduunka ku geeriyoodeen ee kala ahaa abaartii weyneed ee dhacday intii u dhexaysay 1315 ilaa 1317 iyo abaartii kale ee loo yaqaanay dhimashadii madoobeyd iyana adduunka soo martay 1350. in dadku ay kordhaan waxay aad u badnayd inta u dhaxaysa 1950 ilaa 1970, waxaana ugu yaraan 2010 ilaa 2015 sida muujinaysa qoraalada la sameeyey. waxaa jirta saadaal muujinaysa in marka la gaaro sanadka 2050 dadka adduunka ku nool ay gaarayaan 10 bilyan oo ruux, halka marka la gaaro 2000 la saadaalinayo in tirada dadka adduunka ku nool ay gaaraan 11 bilyan oo ruux. sanadka 2011 waxaa la aaminsan yahay in caruurta adduunka ku dhalatay ay gaarayaan 190 milyan. haddaba taasi waxay ku xiran tahay dhimashada geerida, inkastoo imika uu soo kordhay COVID-19 saadaashanna ay bixiyeen mar hore. macluumaadkaas haddaba way bedelanaa. sanadka 2011 waxaa la aaminsan yahay in caruurta adduunka ku dhalatay ay gaareen 180 milyan. sanad kasta qiyaastii 56 milyan oo ruux ayaa adduunka ugu dhinta sababo kala duwan, sida xogtana sheegayso. dadka dhexaadka ah bulshada caalamka waxay ka yihiin 30%. dalka Shiinaha ayaa adduunka ugu dad badan, waxaana ku xiga Hindiya iyo Mareykanka, waxaana ugu dad yar Faatikaanka oo ah dal yar oo ku dhex yaala Talyaaniga, waxaana dadka dalkaasi uu dhashay lagu qiyaasaa wax ka yar 600 oo ruux. iyo dalka kale ee yar ee la yiraahdo Tuvalu oo ku yaala badda Pacifiga. afrika waxaa ugu dad badan Nigeria, Ethiopia iyo Masar, halka wadamada ugu dadka yarna ay yihiin Seychelles, Comoros iyo Djibouti. adduunka waxaa mara 160 webi, 7 badood iyo 117 milyan oo harooyin waaweyn ah. webiyada ugu waaweyn Amazon iyo Nile. waxaa jira webiyo kale oo waaweyn oo dalal iskaga gudba. sidoo kale qiyaasta 2,000 oo jasiiradood ayaa adduunka ku yaala, waxaana jasiirada ugu badan ku yaalaan dalka Indonesia. wadamada adduunka dadkooda ugu aqoonta badan yihiin waxaa ka mid ah Israa'iil oo dadkiisu 49% ay yihiin dad aqoon leh. waxaa ku xiga Kuuriya, Ingiriiska, Mareykanka, Australia, Finland iyo Norway. wadamada dadkooda ugu jahilsan yihiin waxaa ugu horeeya Gambia oo dadkaan waxba akhrin karin waxna qori karin ay yihiin 63.5%, waxaana ku xiga Mali, Sierra Leone iyo Afghanistan. dalka ugu jaamacado badan waxaa ugu horeeya Hindiya oo ay ku yaalaan in ka badan 8 milyan oo jaamacadood, waxaana ku xiga Mareykanka, Argentina iyo Spain. xagga dhaqaalaha haddii aanu eegno, adduunka waxaa jira hay'ado maamula dhaqaalaha adduunka, waxaana ka mid ah hay'adda lacagta adduunka IMF la yiraahdo iyo bangiga adduunka. dalal ay ka mid yihiin Brazil, China, Faransiis, Germany, India, Indonesia, Italia, Japan, South Korea, Mexico, Russia, Turkey, the United Kingdom, the United States iyo dalalka ku jira midowga Yurub ee adduunkan ugu dhaqaalaha badan. Koongada Dimuqraadiga, Mozambique, Tanzania, Uganda, Tajikistan iyo Yemen. waxaa loo aqoonsan yahay dalalka ugu dhaqaalaha liita adduunka. lacagta ugu badan ee adduunka laga isticmaalo $1. lacagta ku xigta waa yuurada, yenki Jaban iyo buunka Ingiriiska. lacagta Vietnam ee Dong ayaa loo aqoonsan yahay tan ugu qiimaha liidata adduunka oo dhan. dhanka kale, dalal ay ka mid yihiin Canada, Jarmalka, Mareykanka, Ingiriiska, Sweden, Mareykanka, Australia ayaa loo aqoonsan yahay wadamada ugu musuqmaasuqa ka jirin, halka dalalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka ay yihiin Iran, Sierra Leone iyo Ukraine. wadamada ugu wanaagsan shaqo laga helo waxaa ugu horeeya New Zealand, Holland, Belgium, Norway, Australia, Koonfur Afrika, Yemen, marinka Gaza. haddaba daanta galbeedna waxaa loo aqoonsan yahay inay halkaa ka jirto shaqo la'aanta adduunka ugu badan. qiyaastii in ka badan 8% dadka adduunka ku nool waxaa shaqo la'aan. wadamada ugu wanaagsan ee lagu noolaan kara waxaa ugu horeeya Singapore, New Zealand, Bahrain iyo Switzerland, halka wadamada ugu nolosha adag ama ay dadkoodu dhibaatada ugu badan kala kulmaan ay yihiin Mexico, Iran, Costa Rica, Philippines, Burundi iyo dalal kale oo badan. dalalka loo yaqaano dunida saddexaad xagga isgaarsiinta, qiyaasta 5 bilyan oo ruux ayaa adeegsata taleefanada habka ugu badan nooca gacanta lagu qaatay moobilka loo yaqaano, waxaana dadka ugu badan ay isticmaalaan moobilkaas.
qaaradda Afrika marka loo eego dadka taleefanaha haysta waxay gaarayaan 781 milyan oo ruux, waxaana dadka ugu badan ay yihiin isticmaala moolka Itoobiya, Nigeria iyo Tanzania. Waxaa la saadaalinayaa in sanadka dambe ee 2020 inta aanay gaarin 2020 waa kana ku jirno 2025 ilaa 2027 hal bilyan oo ruux dadka Afrika internetka isticmaala. Baaritaanka la sameeyay sanadkii 2017 iyo 18 waxay sheegaysaa inay gaarayaan 174.26 milyan oo ruux, waxaana ugu badan dadka u dhashay Nigeria, Masar. Adduunka waxaa soo maray dagaalo badan oo galaaftay inay dad badan dhintaan ama xasuustooda ay ku waayaan ama taariikhda galay, waxaana kamid ah dagaalkii koowaad ee adduunka, labaad dagaalkii Kareemiya ee dhacay sanadkii 1853 Carabta iyo Yahuudda dhex maray, iyo dagaalkii loo baxshay dagaalkii Qabooba. Dagaalkii ugu khasaaraha badnaa waxaa loo aqoonsan yahay dagaalkii labaad ee adduunka. 56 milyan oo ruux ayaa la aaminsan yahay inay ku geeriyoodeen, dadkaas 26 milyan oo kamid ah waxay u dhasheen dalka Soofiyeedka la isku oran jiray, halka 7.8 milyan oo kalena ay u dhasheen Shiinaha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.